timirta waa miro macaan, kalarkeedu yahay madow. Ereyga cilmiga ku dhisan loo yaqaano waa Phoenix dactylifera, halka afka qalaad lagu yiraahdo date. qiyaas ahaan caleenteeda waxay gaadhaa 4 ilaa 6 mitir. kumanaan sano ka hor ayay ahayd xilliga ibni'aadamku bartay. dalka ugu horeeya lagu arkay waa Ciraaq. waxay timirtu leedahay faa'iidooyin kala duwan. faa'iidooyinkeeduna waa tirobeel, laakiin muuqaalkeeni maanta waxaynu ku soo koobaynaa 5 faa'iido muhiim ah ay timirtu leedahay. waxaa ku jira fibersku waa qayb ka mid ah carbohydrateska. jirkeena awood uma lahan inuu wada burburiyo mise si dhammaystiran u wada burburiyo. sidaa daraaddeed waxaa la soo raacayaa saxrada si ay calool socodka u wanaajiso. jirka aadanaha waxa uu u baahan yahay fibers ku filan. timirtana waxay noqon kartaa in laga heli karo. cilmi baaris lagu sameeyey 21 qof ayaa lagu tijaabiyey qaadashada timirta ayagoo qofkiiba siiyey 7 midh. waxay natiijadu noqotay in 21 qof calool socodkoodu wanaagsanaaday. waxaa ku jira nafaqooyin kala duwan. 3.5 ounce oo u dhiganta 100 garam oo timir ah waxaa laga heli karaa carbsku waa qayb ka mid ah carbohydrateska. jirkeena wuxuu u leeyahay awood uu ku dheefshiidi karo. fibers 7 garam, proteins 2 garam, potassium 20%, magnesium 14%, copper 18%, manganese 15%, iron 5%, vitamin B6 2%. waxaa ku jira antioxidantsku waxay jirka ka saacidaan la dagaalanka waxyaabaha qaar oo waxyeeleeya unugyada. antioxidantsku waxaa ka mid ah flavonoids. waa antioxidants awood leh kaasoo jirka ka saacida yareynta caabuqa. wuxuu kaloo yareeyaa fursadaha uu qofka ugu dhici karo xanuunka macaanka mise sankarowga iyo xanuunada qaar ku dhaca maskaxda ay ka mid tahay ilowshiyaha badan. carotenoids waa antioxidantska labaad. wuxuu si gaar ah u yareeyaa xanuunada ku dhaca wadnaha iyo indhaha. waxay fudaydisaa foosha. timirta waxay hooyada uurka leh u fudaydisaa foosha, gaar ahaan bilaha dambe oo hooyadu loo filanayo inay dhasho. taana waxay yareyn kartaa baahida dawooyinka loo isticmaalo dadejinta foosha. khubaro ku heelleer arrimahan ayaa waxay xaqiijiyeen in 69 hooyo ay tijaabo ku sameeyeen iyagoo oo maalintiiba 6 timir siiyey hooyo kastoo ilaa 4 asbuuc ka hor dhalmada. waxay natiijadu noqotay in 20% hooyada qaadatay timirta ay ka wanaagsanayd hooyada aan hore u qaadan. timirta waxaa laga helaa taanis waxay hooyadu u fudaydisaa foosha iyada oo kordhinaysa isu soo ururidda ilmagaleenka. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka inoogu tilmaamay suuradda Maryam aayadda 23. Maryama hooyadii Nabi Ciise ilaahay ha ka raali noqdee markay foolanaysay waxay dareentay xanuun saayida. waxaa lagu yidhi gilgil xagaaga jiridda timirta ha ku soo riddo korkaaga timir oo fiicane. tani waxay ka mid tahay xaqiiqooyinka biyo kama dhibcaanka ah mucjisaadka qur'aanku uu leeyahay. waxay kordhisaa adkaysiga lafaha. timirta waxaa laga helaa macdan minerals kala duwan sida potassium, calcium iyo magnesium. dhammaan waxay kor u qaadaan awoodda lafaha kana yareeyaan xanuunada qaar.